محمد ولي oo مسؤول sare oo ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya waxa baryahan ba socotay in shidaalka dhulkaas Soomaali galbeed ee ay Ethiopia gumaysato in baryahan ay shirkado ajnabi ah oo ay ka mid tahay shirkadda weyn ee la dhaho BGLG shiinayska ah iyo Ismaaciil Cumar Geelle iyo dawladda Ethiopia inay heshiis ku wada saxeexdeen magaalada Djibouti halkaas oo ay dhagax dhigeen warshadii lagu sifayn lahaa gaaska dabiiciga ah ee ceelka weyn ee jeexdin ee ummadda Soomaaliyeed ay leedahay marka baryahanba waxa socday waraysiyo fara badan oo ay laga sii daayay VOA-da madaxa hoggaanka arrimaha dibadda jabhadda sidoo kale waxa waraysi ama lagu qabtay shir jiraa'id magaalada Nairobi waxaan halkaa ka hadlay Maxamed Shariif xiriiriyaha guud ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya haddaba maanta waxaa marti noo cabdi xakiin ku soo dhow saxaafadda Soomaalida Alberta بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan ugu horeyn salaamayaa oo salaan qiimo badan hawada u marinayaa guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan shacbiga Alberta shacbiga Soomaaliyeed ee Alberta degan oo idaacaddani ay maaragtay gaadho oo ay sabgrayso kadibna waxaan salaanta la mid ah maaragtay u soo gudbinaya iyagana oo salaamaya maamulka iyo shaqaalaha idaacadda ama saxaafadda Soomaalida Alberta oo fursadan ii siiyay in aan maaragtay kursaankayga ama maaragtay aragtidayda la wadaago shacbiga Soomaaliyeed ee Alberta degan aad baan idin salaamayaa waan idinkaga mahadcelinayaa fursadda qiimaha badan ee maaragtay inaad ugu martaqaadeen stuudiyihii maaragtay saxaafadda Soomaalida Alberta waana dhowahay Cabdiraxmaan aad baan anaguna sidoo kale oo ku mahadcelinaynaa waqtiga fiican iyo booqashada aad nagu soo booqatay stuudiyaha aan ku leenahay magaalada Edmonton ugu horeyn waxaa jiray baryahanba guux aad u weyn oo dhinaca saxaafadda iyo social media ba ka socday in gaaska dabiiciga ah ee jeexdin ay soo saarayaan dawladda Ethiopia dawladda Djibouti iyo shirkadda shiinayska bal arrintaa faahfaahin naga sii mudane cabdi xakiin Cabdiraxmaan sida aad sheegtay dadka wax qora ama maaragtay wax akhrista ama wax dhageystana ay runtii si aad ula socdeen saddexdii bishii saddexaad ama bishan aynu hadda ku jirnay ee 20ka ah saddexdeedii ayaa waxaa dhacay maaragtay meesha la yiraahdo Djibouti waxaa ka dhacay taxaaluf ama isbahaysi maaragtay halka lagu shaaciyay oo lagu tilmaamay in lagu dhagax dhigahayo mashruuc la yiraahdo New Mega Gas Project kaasoo ay iska kaashanayaan dawladda Ethiopia ama gumaysatada Ethiopia ee ay wayaanuhu maaragtay horkacayaan shirkad Chinese oo la yiraahdo Poly GCL iyo ninka maaragtay xukuma dawladda Djibouti ee Ismaaciil Cumar Geelle la yiraahdo marka arintaas markii aan inta ka idhaahdo saddexda jaanib is maaragtay kaashanahaya waxay saddexduba ka indhala yihiin ama maaragtay aynan xogaal u ahayn sooyaalka iyo maaragtay taariikhda uu leeyahay khayraadkan ay hadda isu bahaysanayaan ay rabaan inay maaragtay boobaan iyo marxaladihii iyo maaragtay isku dayadii hore sida aan ognahay haddaan dib ku yar celiyo halkan hubaysan baa maaragtay ka jira waddanka oo ay Ethiopia oo buuraha kore ee Highlanderska la yiraahdo ka soo daadagaysay ay doonaysay inay dhulka Soomaaliyeed ee Ogaadeniya loo yaqaan ku qabsato shacbigii dhulka lahaana oo halgama isdaba joog oo iska caabina oo kula jiray si uu cadaadiska iyo maaragtay damaca gumaysatada uu isaga caabiyo kii baa ilaa hadda socda waxaan haddaan taariikhdaas wax ka tilmaamo qarnigii 15aad Axmed Gurey baa la dagaalamay kii 19aad waxaa la dagaalamay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan kii muxuu ahaayay 20aad waxaa la dagaalamay halgankii caanka ahaayee muxuu ahaayay loo oran jiray 7 ama 7 sida loo yaqaano ama WSLF ka hadda socdana waxaa ku jira oo hormuudka ah jabhadda la yiraahdo jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya
intaasoo halgan hal ujeeddo unbay wada lahaayeen oo ah in shacbigaas soomaaliyeed ay ogaadeenaya khayraadkiisa iyo muxuu ahaayey hantidiisa dihin aanu cadowgu oo damaciisu ahaa inuu meel allaa ka qaato aynan arrintaasi suurtagelin iyo in ummadda la gaarsiiyo madax bannaani ay iyadu masjirkeeda kaga tashato oo ay maslaxadeeda ku xaqiijiso ugu dambeynna ay go-aan ka gaadho inay noqonayso maadaama 5 qaybood loo qaybiyey ummadii Soomaaliyeed in ay go-aan ka gaadho inay maaragtay qolo waliba markay xaqiijiso hadafka isaga cidda ay ku darsanayso iyo in ay ku darsanayso inay gooni istaagayso ujeedadii baa wali jirta damacii gumeysuguna waa sidiisii marxaladaha uu soo maray marka damacaasu xagga khayraadka ku saabsan markaan iyadana dib kugu celiyo hadda ma ahayn markii la helay khayraadkan ama shidaalkan iyo maaragtay gaaskan ogaadeenaya waxaa weeye 50 sano baa dib loo noqonayaa kaalub baa ugu horreeyey oo gobolka Jeexdin laga helay waxaa helay oo isaga dambeeyey shirkad Talyaani iyo mid Jarmal ah waxay shirkadahaas iyo sahamadaas oo dhan ay doonayeen inay ka faa'iideystaan oo ay noqdaan maadaama iyagu ay helaan khayraadkan kuwa kaliya ka faa'iideysta inay iyaga noqdaan waxaase fashiliyey isku daygaas oo dhan shacbiga geesiga ahaa oo khayraadkan iska lahaa oo gumaysi ku hoos jiray oo aan ogolayn in koob biyo laga daro ilaa iyagu ay maslaxadooda iyo muxuu ahaayey aayahooda intay ka tashadaan ay iyagu khayraadkaas ay noqdaan kuwa go-aanka ka gaadhaya sida ay uga faa'iideysanayaan iyo xilliga ay ka faa'iideysanayaan marka intaasaan mashruuca iyo maaragtay haddii aad su-aasha adiga weydiisa aan kaga bixi lahaa waa hagaag shidaalkan wuxuu ku yaalaa bartamaha dhulka Soomaaliya marka la eego khariidada waa shanta Soomaaliya bartamaheedu ku yaalaa magaalada Shilaabo ayuu kor saaran yahay qeybka Jeexdin magaalada Beledweyne waxay u jirtaa 250 kilomitir Berberna 500 Jabuutina 850 marka sidee bay suurtagal ku tahay Cabdi Xakiin anoo su-aasheeda ku weydiinaya sidee suurtagal ku tahay 850 kilomitir oo dadkii deganaa deegaanka inta la barakiciyo dhumaha shidaalka la geynayo xeebta la dhaho dameero joog sida aan qoraalada ku aragnay say arrintaasi u suuragelayso Cabdi Xakiin arrintaasi waa damac gumaysi runtii marka xagga Ethiopia laga cabiro oo waxa weeye qofku haddii uu gurigu ka tambato waa tii la odhan jiray wuxuu ka indhabeelaa maslaxada damaca Ethiopia hungurigaas iyo muxuu ahaayey damaca galay waxay ka indhabeeshay maslaxadii oo waxaasoo khatar ah oo maaragtay ku hareeraysan shidaalka ogaadeenaya iyo geographically iyo maaragtay meesha uu maapka kaga yaalo iyo muxuu ahaayey milkiyad ahaan ama maaragtay territory ahaan meesha uu khayraadkani kasoo jeeday iyo cidda iskale waxaasoo dhan waxaa maaragtay ka indha tiray damaca iyo hungurigaa galay haddaad xagga Ethiopia aan ku cabiro haddaynu wax ka cabiro xagga shirkadahan Chinese-ka ah iyo maaragtay damaca ku jira waxa weeye nimankan Chinese-ka la yidhaahdo ama shirkadahani waa niman iska caloosha ku shaqaystayaala inaan fahnaan u baahannahay horta dowladda China ma aha waxa hadda mashruucan ku hawlan waa company caloosh u shaqaystaa weeye oo waxa weeye dhaqaale ku bixinaya Ethiopia iyo muxuu ahaay askarteeda inuu ka dhex hawlgalo oo runtii dhibaatadii halkaa ka jirtay qayb ka noqday weeye faa'iido kaliya marka ma doonayo wuxuu rabaa faa'iidadii si uu gaadho inuu halaaga u maro taasina dee waa damac indhala-aan oo runtii aan suurtagelaynin weeye laakiin iyagu hadafkoodu waa sidaa weeye Jabuuti baa ku hawlan iyaduna Jabuuti waxaa indha tiray baan odhan karaa 2 arrimood horta shacbiga Jabuuti waa shacab Soomaaliyeed oo aan walaalanahay waa shacbiga aan gobonimadiisa u dagaalanay oo maaragtay Soomaaliya oo dhan ay dhiig iyo maaragtay naf iyo maalba ay ku bixisay waa shacbiga aan sababta u ahayn inuu xoroobo oo maanta xorriyadiisa uu ka tashanayo waa shacbi 600 kun tiradiisu ay tahay oo runtii ay ku hareeraysan tahay 700 oo muxuu ahaay 70 milyan oo gaajaysan qaanuun baa ilaalinaya qaanuunkii ilaalinaya marka inay garan waayaan haddiiba Soomaalinimadii iyo wanaagii iyo ay garan waayeen qaanuunkii ilaalinayay iyagoo 700 oo kun fursadda 600 oo kun fursadaas iyo inay dawlad xor noqdaan oo ismaamulaysa ay noqdaan oo badda u dheer haysta 70 milyan oo gaajaysanna ay maaragtay ag fadhiyaan oo maaragtay bad la'aan qaanuunkaas ay ilaalinaya
qaanuunkii marka hadday Jabuuti garan weyday dee 800 tirakoobkii ugu dambeeyay ogaadeen lagu sameeyay wuxuu ahaa 7 milyan oo weliba dee gumaysigu u sameeyay oo ku maaragtay yareynaya numberka iyo maaragtay populationka ogaadeen 7 milyan buu ku qiyaas marka waa 600,000 oo 700 anoo aan jeclayn inaan sidaa shacbiga Soomaaliyeed ee Jabuuti ku tilmaamo haddana waxa weeye Ismaaciil Cumar Geelle iyo waxyaabaha inta tirahaya ayaa u baahan in xaqiiqdii la tilmaamo laba arrimood baa marka ugu wacan damacaas Jabuuti iyo indhalaanta oo maslaxadii ka indhabeelay mid waxa weeye waa tenis maaragtay xukunkii maaragtay runtii doonayay inuu ku sii fadhiyo oo olole iyo maaragtay campaign ku jira marka inuu horta halkaa shacbiga Jabuuti ku qado uga faa'iideysto runtii waa qodobka labaadna waxa weeye dhaqaalahuna weligiiba maqal baa loo tilmaamay madaxu intuu qabsaday wuxuu yiri 2 milyan iyo bar dhaqaalahan maqallayba maaha marka dhaqaalahaas faraha badan ee loo tilmaamay oo uusan garanaynin maaragtay meesha ku imanayo iyo isaga oo campaign-ka ku jiro isla Jabuuti waad uga faa'iideysan kartaa maaragtay mashruuca dameer joog la maaragtay in la keeno waad ku abaabuli kartaa oo doorashada mar kale aad kaga heli kartaa labada arrimood baa ugu wacan waana runtii nasiib darro iyo maaragtay waxaan loo dulqaadan karin shacbigii Soomaaliyeed ee xorriyadiisa u soo dagaalanay ninkii maanta aanu hiil iyo ka mudnayn inuu cadawgaas garabna siiyo si aanu dulmigii uu shalayta aanu ka dhiidhinay in maaragtay annaguna uu ka dhiidhiyo hiilna noo noqdo si aan uga hoos baxno inuu halkaa ka miiso aad baan uga xumahay waana wax aanan mar labaad baan ku celinayaa shacbiga Jabuuti ee daamalaha xukuumadda hadda fadhida oo aan oran karo waa niman un hadda adduunka ku soo biiron xogaal ba ahayn ayaa dhaliisha iyo eeda iska leh inta markaan kugu daran xogaalnimada xog la'aantaas waxaa iyaduna u wehelisa wuxuu arki jiray sharar lala galo Addis Ababa oo ama dad Soomaaliyeed oo inta la qabta Addis Ababa laga iibsado muxuu ahaayay tareen Addis Ababa ka yimaada iyo heshiis noocaas koronta Addis Ababa ka timaado oo lagala dhilgareeyo Ethiopia arrimo noocaas u arki jiray maba yaqaanaba shidaalkan iyo meesha uu ka imanayo iyo taariikhda uu leeyahay iyo shacbigaasi waxa weeye waxa ay ku bixiyeen marka intaasaan ka tilmaamin haysaga waa hagaag weli barnaamijkeena bartan kaga jirnaa mudane su-aashan waxay tahay shidaalkan sidiisaba yaa iskale ma Ethiopia iskale waa shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed ayaa iskala khayraadkan guud ahaan shantii saad og tahay waxaa Afrika lagu soo duulay 1848 ayaa Afrika la qabsaday oo lagu soo duulay shirka dawladda kaliya ee madow ee qayb ka ahayd ee Afrika in la qaybsado qaybteeda iyaduna ku gorgortantay waxay ahayd tan Ethiopia hadda maanta ay gumaysanaysa duulaankaas Afrika lagu soo duulay ee la qabsaday awoodii reer Yurub ay qaybsatay wuxuu sababay Soomaali in loo qaybiyo 5 qaybood oo xuduud beenaad la dhex dhigo xuduud beenaad taas marka waxa weeye waa shirqoolka iyo muxuu ahaay duulaankaas arrinaynu ka dhaxalay laakiin xaqiiqdu waxay tahay markaynu ka hadlayno gobolkan Ogaden ama Soomaali galbeed dadku inba si u taqaanaa waxa weeye waxaa dega Soomaali oo dhan 32 qabiil oo Soomaali ka kooban baa degan qoys Soomaaliyeed oo maanta aan wadanka degin oo aan dhaqaale iyo dhiig ku bixinin gobonimadiisa si uu xaqiijin lahaa ma jiro Soomaalida loo yaqaan geographically hadda labadii xorowday labadii midoobay muxuu ahaay British Somaliland iyo Italy Somaliland waxa weeye marka la tilmaamo jamhuuriyaddii xorta ahayd dad Soomaaliyeed oo aan degin yaa degan Ogaadeenaya oo wax kula khayraadka saat tilmaantayna khayraadkan wuxuu ku yaalaa jeexdin hiiraanna wuxuu jiraa iyo maaragtay beledweynena wuxuu jiraa waa caanatel wey marka khayraadka halkaa inta laga qaado oo waxa weeye la geynayo dameer joog iyo Jabuuti waxaa mudan inay ka faa'iideystaan oo waxa weeye ay u tashadaan Soomaalida degan hiiraan iyo muxuu ahaay Muqdisho iyo Kismaayo iyo muxuu ahaay Boorame ayaa mudan inay ka tashato oo iyadu sida ay maaragtay iyo halka ay marinayso ay isweydiiso
in yarna waxaan jeclaa inaan kugu daro khayraadkani ma aha wax maaragtay iska sahlan oo intay ceel wadaan la darsado dadka lagu shubahayo waa khayraad khatartiisa leh oo wuxuu noqon karaa nuclear maaragtay iyo musiibo ifka usoo baxda ama wuxuu noqon karaa maaragtay khayraad iyo barwaaqo ifka usoo baxa hadba maaragtay cidda gacanta ku haysa sida haddii dadkii lahaa ay ka faa'iidaysanayaanna khayraadkaas iyo wanaaggaasuu noqonayaa haddii mustacmarku ka faa'iidaysanayana musiibadaasuu noqonayaa oo hadda isagii oon soo bixin oon khatartiisii iyo kiimikadiisii iyo dhibtiisii la gaadhin ay durba shacbiga iyagii soomaaliyeed victim u yihiin oo intaasoo boqol oo maaragtay square oo dhul ah la xaalufiyey oo daaqii iyo muxuu ahay degaankiina laga barakiciyay dadkii ahaa marka usoo noqdo su-aasheeda kale waxaa way cabdixakiinow dadka deegaankaas degan gobolkan la dhaho qoraxay ku hareereysan ilaa iyo jexdib sideedaba marka shidaalka la qodayo waxaa dadka waa lagala tashadaa odayaasha dhaqamada sida waddankan aan joogno alberta oo kale nativeka waddankan leh marka hore inta lagala tashado khatarta ka imanaysa ayaa marka dambe go-aan laga gaadhaa marka wax wadatashi oo dadkii deegaanka deganaa lagala sameeyey 850 kilomitr aad sheegayso ma jiraan absolutely maya waxaa weeye lagalama tashanin waa markaan arrinta anoo ka jawaabahaya xaqiiq waaqaca iyo duruufta ay maanta dadkaasi ku nool yihiinna aan kuu tilmaamo horta jawaabtu waxa weeye lagalama tashanin inaan lagala tashaninna caddaymaan ku siinhayaa laga soo bilaabo 2007 markii Chinese-kii deganaa ama ku hawlanaa ceelasha shidaalka ee Obollo digniinihii iyo maaragtay warningkii la siiyey ay ka dhaga adeegeen tallaabo sharci laga qaaday wuxuu cadowgu isku dayay si maaragtay arrintaas mar kale aynan maaragtay u dhicin khayraadkiina loo boobo in dadkii dhulkaa lahaa qayba loo qaybiyo wax la dilo wax la xidho wax la barakiciyo taasaa marka waxay keentay in awood la isku dayo in maaragtay hawshaas yadaa lagu xaqiijiyo laakiin wax tashi ah iyo wax maaragtay dadkaas maslaxada ama khayraadkaa lahaa laga weydiiyey haba yaratay ma jiro waa hagaagwan garanay inaan wada tashiya waxaa jirta 2007kii in ceel shidaala oo ku agdhow magaalada dhagaxbuur cogolle in lagu laayay dad shiinays ah qaarna ay la afduubay marka maxaa mar labaad soo cusboonaysiiyey maadaama ay markii hore arrintaasi ku dhacday waxaa weeye watanay soomaalidu tiraahdo wan weyn ilaa oo la gowraco indhihii sucarka ma arkaan waana tii aan horay kuugu hormariyo maslaxadii waad ka indhabeela haddii hunguriga haya iyo maaragtay damaca ku jira yaa wuxuu keenahayaa wixii shalay ahaa inay ilaawaan oo ay maaragtay aynan runtii ay wax badan ka indhabeelaan maxaa qorsho ah oo aad ku difaacaysa haddaad tihiin madaxdii jabhadda waddaniga xoreynta ogaadeynaya dowladdaa weyn ee 90 milyan ah ee wax walba u dhammaystiran yihiin idinkuna aad tihiin jabhad isla markaana gobollada soomaaliya oo dhanna maanta ay gacanta ku hayso isla markaana ay xitaa noqoto in shacbigii laga tarxiilo magaalooyinka hargeysa garoowe loona geliyo cadowgaas gacanta loo geliyo maxaad ku difaacaysaan ood u haysaan shacbigaas ood hantida iyo khayraadka ummadda soomaaliyeed aad ku difaacaysaan waa su-aal fiican wey aad baad mahadsantaa cabdiraxmaan horta saad sheegtay halgan hubaysan baan anoo ku jiraa jabhad baan nahay oo dowlad ma nihin waa sax laakiin halgan hubaysani ama gobonnimo doonku isagaa ka taagtiig iyo xoog iyo xeelad badan cadowga ay ishayaan sababtoo ah waxa weeye cadowgu waa cadow duulaan ku yimid sidaad og tahayna ogaadeen yahay askari qori wataa jooga ma joogaan shacbi etoobiyaana iyo muxuu ahaayey waa siday rabaan inay maaragtay runtii ay gaadhaan laakiin shacbi waxa weeye hantidiisii iyo geedkiisii iyo dhulkiisii jooga oo dagaalamaya oo maslaxadiisii iyo maaragtay khayraadkiisii difaacanaya ayaan nahay marka waxaan ku difaacaynaa oon maaragtay kaga hortegaynaa diyaar garowgeediina waan leenahay daacadnimadeediina waan leenahay waxaan kuu sheegahayaa qurbaha iyo dadka yagii maaragtay soo qaxay gumaysigu wuxuu xariif yahay markii uu dadka qaybiyo oo maaragtay divide and rule ay timaado
oo uu maaragtay yidhaahdo jaamacadaan idin qodhayaa iyo biyaan idin dhisnayaa waxa yay dadku qaybsamaan laakiin markay noqoto shidaalkaagii iyo khayraadkaagii baan la baxayaa arrintaas waxay keenaysaa inaan aad u cadhoonno oo dadka iyagii qaybsanaa ay isu keento bulshayadiina ay soo degdegto insha allah tacaala gabagabadii baan ku jirnaa waxaa halkan kaa dhegaysanaya dhammaan ummadda soomaaliyeed maxaad kula dardaarmaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee gobolka alberta ee maanta raadiyahan kaa dhegaysanaysa aad baad umahadsanta cabdiraxmaan ummadda soomaaliyeed waxa jira un baan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay khayraadka idinkaa iska leh waa kii aad dhimateen waa kii aad u halganteen waa kii aad 1530 axmed gurey halgankii iyo dagaalkii ka soo bilowday iyo ka maanta socda aad qiimaha ku bixiseen wey marka idinku oo taagtaagan oo idinku dhexdiina isku mashquulsan oo intaasoo gobol runtii maanta sida ay Soomaali tahay waa wax lagu xumaado wey laakiin haddana rajaan ka qabnaa baraarug baa jira allana waan leenahay ummad muslimaan nahay waayo aragnimadeedii iyo taariikhdeediina waan leenahay oo waan soo marnay waxaan marka ummadda Soomaaliyeed leeyahay maahiriyaa lahaay yaa maali jiray maanta taagan tahay aynu fadhiga ka kacno maslaxadeeni iyo maaragtay khayraadkeennana aan difaacano baan leeyahay aad baad u mahadsan tahay intaa waxaan kaga gudbaynaa barnaamijkii aanu la yeelanay mudane cabdixakiin maxamed weli cabdixakiin waan ku mahadcelinaynaa waqtiga fiican aad na siiseen aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan adiga iyo shaqaalaha idaacadda